muwaafaqayga ahayn laakiin adigu waxay kugu eedaysay ma ay fahmin iyadu waxay tiri waxaan ahay gabar qaran Soomaaliyeed adigu hal dhinac baad u fiiri horta waxaan oo kale inaad igu yeedhaba horta xasan sheekh maxamed waxaan rabaa inaad ka jawaabto waxay ku tiri war umada been yaan laga dhaadhicin war umada yaan been loo sheegin war ilaahay inna lahu la yastahi min haqq war umadi waa kala tagtay umadi dalkii ay lahayd inta la isku soo celiyay miyaa lagu heshiisiyay war meeshan diyaas barada UK baa leeyahay wad arkaysa ragga wixii ka taagnaa wad arkaysa laakiin meesha laftirkeeda adiga gabadha aad ku haysato waxa jira jaaliyada jirta gabadhan nadaara reer Puntland in la soo fariisto ana qaran Soomaaliyeed matalaya yaa aaba qalad ugu ahayd ma laakiin iyadu wali waxa leedahay qaranka matalaysa xagee ka dhisay ay wacda ma ahayn xagee baa maamul goboleedahay xagee baa maamul goboleedahay hadii Puntland maamul goboleed tahay muqdisho waa maamul goboleed Kismaayana waa maamul goboleed shabeellooyinku waa maamul goboleed horta Soomaaliya hadii qarankii qabiil xambaarsado way iska tagaysaa waa tahay arinta waxaan su'aal kale ku weydiinaya su'aal kale midaan haweenka qaranka iyo u soo noqonaynaa waxaad tiri hal su'aal baan ku weydiinaya waxaad tiri wadankan waxba lagama waa u soo noqonayna هل سؤالك ودينا هل أرينا ربنا كويديو waxaad tiri wadankan waxa leeyahay Ingiriiska laga dhigi karo ururo lagu ma dhawaaqo laakiin waxa jira jaaliyada Soomaaliyeed jaaliyadeed waa lagu dhawaaqo Soomaaliyeed UK lagu dhawaaqo jaaliyada Soomaalida jirta oo hadda sidaad og tahay la isku hayso ilaa laba group u qaybsan wax badan baa jira jaaliyada Soomaaliya halkan ka dhisan anagu nin baa la doortay arigu waa ka soo qayb galay doorashadii ninka waxa leeyahay Maxamed Ismaaciil Atoore nin baa garab istaagay in adeerkiisa meel walba inta la istaago yiri anagu waxaan ahay gudoomiyaha diasporada UK Atoore ma sheegan qaran diasporada wuxuu yiri gudoomiyaha diasporada UK baa loo doortay Soomaaliya oo dhan baa isaga timi inta UK ku nool adigu waa ka qayb gashay anigu waa ka qayb galay waxa lagu dhigay Soomaalina uga qayb gashay Soomaalina uga qayb galay waxa marka socoto ma taqaana aniga idee qaran ba meel u ka jira ayan jirin baa socda meeshan diyaas baraynu nahay inagu adigu ma qaran idaacada qaranka ee Soomaaliya ma meeshan qaran Soomaaliyeed oo UK ka dhisan ma jiro Somaliland waa maqan tahay state bayu istaagtay Puntland waa maqan tahay Jubaland waa maqan tahay Galmudug waa maqan tahay xubin iyo xeeb waa maqan tahay bay iyo bako lama hayo gabarda halkan ka soo booday gudoomiyaha qaranka Soomaaliyeed baana gudoomiyaha qaranka Soomaaliyeed waxa laga dhigaa qaranka Soomaaliyeed laakiin Somaliland hadday haysato dukumeenti cadeynayo yaqaano iyo reer qaatumo waqooyi baa la dhigi jiray calan bay noo keeneen شرف بين اللي Somaliland إيه غير ضد Somaliland أو قوي يقول لسه أورنجري لكن Puntland قالوا أبحي إيه كان قال هدات هذا Puntland كفية ده قريها كمان محيطها Puntland شرف بين لا عشان كده Somaliland كم قرية وقوي هملها ودي Puntland كفية ده وقوي إيه كافر Puntland ما كوف سنقبيه أغراضيه Somaliland waliba kuma maqan waxbay xadaan sheegan waladan nacay waladan nacay ya Puntland ya Puntland alayhi adal aniga iskala macay kana u sareeyo raalli hada dad badan baa u tirsan shayka Soomaaliyeed baan watay shayka Soomaaliyeed Puntland ya xasan sheekh ka hadashay
النعبة بس حفلة حسن الشيخ عرفت مدحوينها الصومالية موضوع يا وصل نقولنا تري سني هدلوا واي بابا بطلان قد كي كبح هذا بس موضوع يا وصل نقولنا وحي ركاد xogaa kala xishoon dad badan baan daawanay waa dhamaatay mawduuc ya ku soo noqonayna hadda waxaan ku yiri mawduuc ya ku soo mawduuc aan tayni lay bariyaysa budlan qabilaan heestayatri laakiin tayni waa beel yar meesha dadka adugu budlan maxaa la qaabta tiraadeen budlan weey way diidan qaatumo waxay ku qasbina dadka waa qaran Soomaaliyeed waa qaran Soomaaliyeed isir ma jiro qaran Soomaaliyeed qaatuma noolaato wakiilka noolaato qabiil ahaan maaragta ku raacinaysa adiga qaatumo aadbaan ugu xumaay qadar xayisiis waa isku soo noqonayna qadar yar xayisiis aniga mar dambe ha igu yeerin maya qaaqala waa aniga koogolo buntland baan بس داود kuma rabo maalin walba dawladda Soomaaliyeed soo dhaweeya aad baan ugu faraxsanahay داود barnaamijkii waa laga intaa wuxuu isu bedelay xogaa doon isu bedelay xasan sheekh